okay marka qofka graphic designer-ka ah shaqooyin nooca ah buu qabtaa okay shaqooyinka qabanayso waa noocee shaqooyinku way kala duwan yihiin waa saddex qaab baa u qaban kartaa haddii aad graphic designer tahay saddex nooc bas baad u shaqayn kartaa kow waa inaad noqoto freelancer graphic designer oo aad noqoto freelancer designer waa maxay adoo gurigaaga jooga inaad shaqaysato oo clientiyada aad ka hesho banaanka oo aadan moogtahay meel xaadirin just aad gurigaaga joogto adiga maamulo isu ah clientiguna waxay weeye tusaale ahaan waxaad u shaqayn kartaa bishii 10 clienti haddaad u baahan tahay bishii hal mar baad shaqayn kartaa oo hal clienti baad u shaqayn kartaa waxay ku xiran tahay hadba sidaad moogtahay adiga u baygarayso okay marka lacagta markii laga fikirona lacagta risk waa geli kartaa marmar oo wax laga yaabaa bil inaadan lacag ba helin oo tusaale ahaan clientiba ku imaan bil waxa laga yaabaa inaad jam tahay bilba waasi okay marka muxuu ku fiican yahay isaga awan boss isu ah macnaha xilliga dimaanaysid xilliga shaqada qabanaysid salaas wax marka soo baxid baa shaqaynaysaa saddexda habeenimood shaqayn kartaa wax ku xiriya mala adiga marka firaaq leedahay iyo markii aad mashquulsan tahay iyo waxaaga adiga maamulanaya okay marka qofka freelancer-ka noqonaya ama freelancer ku shaqaynaya waxa fiican inuu khibrad badan leeyahay si uu clients kala duwan baad u imaanayso Soomaa waxa la rabaa inaad qaabisho inaad soo dhaweyso inaad taqaano ma ogtahay sida dadka loo soo dhaweeyo ma ogtahay inaad waxa gadi karto tusaalahan logaad samaysay ama design baad samaysay haddii aadan aqoon design theory-ga aan sheegaynay qofka aadan u sharaxi karin ama waxaan waxa ka wadid aan sheegi karin oo aadan waxaagi fikradaada aadan gadi karin wax kugu dhacaya inaad waqti badan lumiso clientiguna ay ka yaacaan marka waa inaad khibrad badan leedahay aad meelash badan ka soo shaqaysay marka freelancer waa noqon kartaa okay laakiin si just inta hadda bilowdo freelancer hada ku boodo caqabado badan baa la kulmaysaa okay waxaa jira shaqo kale oo ah in-house designer kan waxa weeye inaad u shaqayso hal company tusaale ahaan shirkad hormuud oo kale baad ka shaqaysaa shirkadda brandkeeda bas baad ku shaqaysaa labada color baad ku shaqaysaa bas waxa loo baahan yahay waad garanaysaa hadda laba bilood joogto already automatically ayaa lagu qabsanaysaa shirkadda baa la shaqaysaa marka shirkadda markii dhinaca lacagta laga fiiriyo iyada job security-geedu waa okay lacagtaada waa ogtahay intay tahay lacagta inta ku soo dhacaysa waad garanaysaa just isna wuxuu ku fiican yahay waa iska raaxaysanaysaa macnaha sababtoo ah hal shaqo aad taqaanid baa qabanaysaa oo wax ku dhibay malaha client badan ku imaanay malaha waa taqaanaa wax aad sameynaysid laakiin se markaad freelancer tahay mid wax ku imaanaya looga raba mid wuxuu rabaa flyer mid wuxuu rabaa web design loo sameeyo midba wax buu rabaa marka waxaas oo dhan inaad moogtahay soo dhaweyn kartid kadibna aad qancin kartid baa laga rabaa in-house designer-kuna wuxuu ku xun yahay just waxaad iskala qabsanaysaa shaqadii waxaa laga yaabaa in creativity-ga guuro oo aadan moogtahay wax soo kordhin oo aadan shaqo badan qaban creativity-guna wuxuu ku kordhaa markii aad wax badan moogtahay qabato aad shaqo badan qabato maalin kasta aad wax qabanaysid oo maalin kasta wax kugu soo kordhayaan okay qaybta saxaad waa maxay waa ad agency designer waa inaad shirkad tusaale ahaan qaabilsan in artiska iyo waxyaalaha la sameeyo iyo aduu shirkad social media waxyaalaha ka shaqeysa tusaale ahaan inaad ka shaqeyso shirkad tusaale graphic design-ka web design-ka waxyaalahaas oo dhan qabata shaqooyinkaas oo dhan qabata xafladaha waxyaalahaas oo dhan qabata marka shirkadaas iyadu maxay ku wanaagsan tahay labadii oo la isku dhex daray weeye in-house designer iyo freelancer-ka oo la isku dhex daray weeye sababtuna waa maxay freelancer-ku wuxuu helayay client aad u badan oo moogtay shaqooyin kala duwan ah sidoo kale markii loo yimaado in-house designer-kuna shaqadiisu iyo lacagtiisa iyo waxay isugu fadhiyeen marka dhinaca lacagta markii la eego in-house designer ayuu kala mid yahay oo lacagta u qaadanayo uu garanayaa moogtay ku xisaabtamaya laakiin si dhinaca shaqada markii la eego iyo farabadnaanteeda freelancer-ku kala mid yahay oo qofkani shaqo badan buu qabanayaa oo moogtay client badan baa u imaanaya mid wuxuu rabaa xaflad in loo dhisan gareeyo mid wuxuu rabaa moogtay kala duwan yihiin marka isagu moogtay wuxuu ku fiican yahay shaqadiina waad qabanaysaa oo creativity-ga uu kordhaya maalinta ka dambeysa sidoo kale lacagtaadii moogtay waa ogtahay haddii aad qaadanayso intaa waa ku xisaabtamaysaa marka waxaan kula talin lahaa qofka graphic designer-ka cusub ah inuu ka shaqeeyo shirkadaha moogtay artiska advertisement-yada iyo xayeysiisyada iyo waxyaalaha ka shaqeeya waa inaad ka shaqeysaa xitaa haddii aadan lacag ka qaadanin marka hore waxaad dhahdaa aniga volunteer ahaan baan kula shaqeynayaa sababtoo ah qofku wax faa'iidayo waa adiga
oo moogtahay aqoonta iyo ilaahay dukuray tababarka ka helaya hadhow markay arkaan inaad dadaaleyso oo aad wax soo wado iyagaaba ku jeclaanaya oo moogtahay kaba teegi maysid hadhow markaad heer gaarto aad waxa kan fahanto oo in badan kusoo dhex jirto aad tababar fiican qaadato marka freelancer waa noqon kartaa oo shaqooyin kale waad qabsan kartaa marka saddexda qaab baad u shaqaysan kartaa haddaad tahay graphic designer waa inaad ku xisaabtantaa marka haddii aadan ogeyn waa inaad hadda ogaataa midkaad gelaysona waa inaad ogtahay freelancer isku raadsan haddaad ku cusub tahay graphic designka haddii aad rabto inaad creativity la timaado badan waa inaad agenciyada xaysiiyada iyo waxyaalaha ka shaqeeya waa inaad la shaqeysaa haddii aad rabto tusaale ahaan inaad hal mid u shaqeyso hal shirkad u shaqeysona waa inaad ku xisaabtantaa in creativity iyo hal abuurkaaga aanu kordhayn marka intaasaan kusoo koobaynaa guuleysta dhammaantiin